قادتين واجي هويا جرتي يا لو ده هل عنقي دشعيال كان مدلي كره marka wiilkeed marka walba ku banaanka aad baa soo dili jiray marka way fikirtay waxay dhahday cunugeyga walaalha haasaway dhahday marka waxay aad meesha oo ciyalka hooyadooda aabood inteen law wiil ay ka soo qaadatay meesha inay kuriso oo wiilkeedana walaal ay u haastaan marka haweenkii markii la gaaray iyada faqiir ahayd laba rooti bas ay haasa labadaas rooti cunugeed koodi ma sii jirin wax waxay sii jirtay labada wiil ee banaanka ee ka keentay gacanta ka saari jirtay hal iyo hal kala sii jirtay ka bacdigiisa waxay dhihi jirtay walaalkiina nus ma ka siisiino marka qof walba muxuu sameynay nus walaalka oo siina kan kale tan muxuu sameynaa nus oo walaalka siina marka walaalka muxuu haastaa dhiigeeda oo yahay hal xaba toosan ciyalkana maxay haastaan nus ay kala haastaan laakiin maskaxdooda maxaa ku jirto inay hooyadan iida koodi ciyalkan ay soo dhaweysatay ahob in storygan wax ka qaadata maanta hadaa ii dhahdid see tahay oo ani ku jawaabo waa fiicanahay waa naxaysa laakiin hadaa ku dhaho waa fiicanahay waa farxiisa halkii hada la ahayd laakiin afkayga soo ugu soo baxay different ahayd shakiri sara waa ina ku sheego saa ku ogaatay hadalka afkaaga soo baxay qiimuhu leeyahay nina jirin taajir ah habeen wuxuu ku riyooday ilkiisa dhan ee jajabeen marka nimanka oriyada sharxayna u soo wacay ninka koowaad wuxuu dhahay sansaana ku riyooday maxaa dhici karto ninka wuxuu dhahay cidaada dhan hortaada ku dhimanayaan uu dhahay ninka boqortooyada uu xanaaqay ninka ala xiro uu dhahay oo idib daran yahay nin labaad uu soo wacay sidii uu dhahay nin saddexaad uu soo wacay ninka aqli leh oo ahay wuxuu dhahay sansaana ku riyooday maxaa dhici karto ninka saddexaad wuxuu dhahay mabruuk ninka boqortooyada uu farxay maxaa jiro uu dhahay wuxuu dhahay ninka gurigiina ugu weynaan qanaysa ugu dambeeyay oo dhimanayo ninka boqortooyada wuxuu dhahay ninkan dahab ala siiyo ala qiimeeyo wax ala siiyo waxaas inoo dhahay hadaa sheekadan wax ka fahanti kulligood halkaada leedheen laakiin ninka ugu dambeeyay hadalka afkiisa ugu soo baxay kala bedeli soo ka fiiriso hadalka afkaaga soo baxaayo muxuu yahay weligaaga isdhiin qofkaasi ama qoftaasi maxay ii nacban yihiin ama maxay igaaga aamuseen waxaa dhici karto naceebkooda ama aamusnaantooda inay faa'iido ay ku tahay story risaar waa ina ku sheego nin cadaan cunsuriya jiri maqaayuu soo galay dadka oo maqaayada fadhiyan ugu badan waxay ahaayeen dad cadaan ah marka kursigiisa markuu ku fadhiistay geeska oo fiiriyay nin madow uu arkay wuu xanaaqay cunsuri waaye marka ninka waiterku waa cuntada keenay wuxuu dhahay kaale dadkan cadaan meeshaan fadhiyaan anuu dhahay cabitaankooda casiirkooda cuntadooda wuxuu dhan anaa leh uu dhahay maanta anaa dhiibaay laakiin ninkan madow xun wax dhan asiinin caadi waayaa loo dhahay dadka cadaanta waxooda dhan way cuneen way caaween rasiidkiyaa loo keenay marka cunsuriga dhiibaa la lacagtaan oo dhahay qaali waayuu dhahay laakiin waa dhiibaayuu dhahay ku xumeen ninka madowga xun daraadiisa marka ninka oo cunsuriga intuu ilbaabka oo ka bixin gadaaluu saan u soo fiiri ku xumeen camalno ninka madowga is celi waay marka inuu istaagiyuu dhahay ninka cadaanka waa ku mahadsan tahay oo maqaayadeeda maanta ku casuunta dadkan dhan maalin walba ii soo naqo marka wax walba inay